Usame beriskari Usame. هذا الله هذا. waa diyaaradii xasan xabaalo qof oo ay qayb dhan ololayso sidaad halkaasi uga jeedaan iyadoo ciidamada lafta gareen ay duqeeyeen kadib markuu xasan isku dayay inuu ka soo baxsado magaalada Baydhabo 30 daqiiqadood oo ku sugnaa magaaladaas ciidamada lafta gareen oo kaabiga ku hayo magaalada Baydhabo ayaana markaasi duqeyntan fuliyay xilligan sidaadiga in warma reer madaxtooy jooga saacigeek hadan haska jarnan halas diyaariyo si qarlay joogana safwa ciidamadii daraawishta lafta gareen soo isku Baydhabo wabillahi tawfiiq xasan gurguurta oo lala cararay diyaaradii uu soo kireystay oo ololayso iyo diyaarad ay leeyihiin qaramada midoobay oo ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Baydhabo ee shaati gaduud oo u soo qaaday dhankaasi iyo magaalada Muqdisho iyo lafta gareen oo beentii iyo propagandadii maanta laga sameeyay magaalada Baydhabo ku burburiyay daqiiqado gudahood sidee lafta gareen awoodiisu xilligan uga shaqeynaysaa magaalada Baydhabo xilli qorshihii xasan sheekh maxamuud iyo khudbadiisiiba uu ka dhigay hal bacaad lagu lisay isagoo dunida tusay in magaaladan aysan amni ahayn kooxda haysatana ay tahay koox awood markaasi ku qabsatay xasan sheekh intuusan tagin Baydhabo wuxuu geystay gumaad shacab isagoo diyaaradaha Turkiga u adeegsaday markaasi in lagu duqeeyo ciidamada lafta gareen ee duleedka magaalada Baydhabo balse ciidanka lafta gareen oo kuwa aad u fara badan ah arintaasi uma aysan joojin iyaga oo banaday munaasabadii caleemasaarka aadan madoobe kaliya 30 daqiiqana ku soo koobay in xasan sheekh maxamuud uu ka soo baxsado Muqdisho isagoo xataa ku hooyan habeennimadan maxaa ka dhacay Baydhabo maxaa laga qariyay tugta ka yeertay diyaaradii xasan sheekh maxamuud xilligan uu soo kireystay oo baraha internet ka qabsatay iyo xasan sheekh maxamuud oo xilligan lagula soo cararay diyaarad markaasi ay lahaayeen qaramada midoobay oo ku sugnayd garoonka shaati gaduud sidee ayuu lafta gareen u fashilay markaasi propagandadii kooxda xasan xabaalo qof ay doonayeen inay Soomaalida iyo sidoo kale dunidaba ku marin habaabiyaan awoodda lafta gareen oo xilligan mid aan la inkiri karin xilli duleedka magaalada ay joogaan iyagoo galabtay hoobiyayaal roob uga dhigay goobtii loo diyaariyay markaas inay ka dhacdo munaasabadu iyo sidoo kale garoonkii diyaaradaha ee shaati gaduud soo dhawaada dhamaantiin saaxiibadeena meel kastoo aad joogtaan waa 6da bisha 7 2026 qodobada ugu xiisaha badan ee warkeena ayuu ka mid yahay qodobkaas aan ku bilowno waxa la yiri wax la cayriyo been baa ugu orod gaaban saacado ka hor maantay warbaahinta waxaa qabsaday xasan sheekh maxamuud khudbadiisii uu beenta ku sheegay uu dadka ku marin habaabinayay wax ka yar 30 daqiiqo ayuu gabigiisuba joogay magaalada Baydhabo intuusan imaan Baydhabo waxaa ka soo horeeyay diyaaradaha Turkida oo uu adeegsaday xasuuq ciidan mucaarad ah oo ka aragti duwan ku dhawaad 5 askari ayaa la soo sheegay ciidankii lafta gareen diyaaradaha Turkidu ee F16ku ay duqeeyeen kuwaas oo ku sugnaa duleedka magaalada balse lafta gareen waa nin deegaanka u dhashay oo ciidamo fara badan magaalada ku leh arintaas uma joojine wada kasta oo ku soo gaabin lahaa safarka xasan sheekh maxamuud ee Baydhabo dunidana u tusi lahaa in magaaladan aysan amaan ahayn oo ay tahay mid la isku haysto xasan sheekh maxamuudna uu yahay nin magaaladan markaasi awood ku joogay ku qabsaday uusan magaaladan hooyan karin oo uusan markaasi tagi karin wuxuu lafta gareen muujiyo awoodiisa ciidamadiisa sida halkan uga jeedi kartaa kuwan ciidankiisa duqeynta diyaaradii xasan sheekh maxamuud uu kireystay ku dhacdayna waa mid xilligan baraha internet ka qabsatay qofkii duubay ayay ku raad joogaan kooxda madaxtooyadu iyadoo markaasi aan la inkiri karin waana diyaaradda oo qayb dhan olayso iyadoo xasan sheekh maxamuud lagula cararay diyaarad ay leeyihiin qaramada midoobay waa tan jugta ka yeertay la ark isagoo isla sii dago waxayna muujinaysaa in qatar ama isku day dil uu markaasi ku sigtay xasan sheekh maxamuud inay qaarijiyaan ama ku baxo gacanta ciidamada daacadda ah lafta gareen Usame.
هذا الله هذا haddaba dal dhan indha sarcaad ma lagu maamuli karaa nin baa waxaa laga sheegay inuu yidhi war amxaaro intee taangi saarnaa xasan sheikh intee ayaa turki ilaalin karaa waa in kooban intee buu turkigu ilaalin karaa taariikhda laba jeer ayuu turkigu soomaalida farageliyey labadii jeerna cidluu uga tegay marka saddexaadna waa tan cidluun uga tegaya waan ka sheekayn doonaa taariikhdaas anuu soo gudo markii baydhabo waxaa ka dhacay baydhabo horta waxaa ka dhacay fusqi waxa ka dhacay baydhabo waxay ahaayeen qudbo siro waxa ka dhacay baydhabo waxay ahaayeen markaasi wax lagu tilmaamay ceeb iyo ihaano dadkaasi loo geystay amada Soomaaliyeed bilowgiiba waxay sugayeen isbedel dhab ah oo meeshaasi ka dhacay qaabku aadan madaba ku soo baxay iyo qaabkii lafta gareen dadku waxayba dhaheen tii lafta gareen baa saxnayd waayo wax loo jeeday laakiin si in ummadda Soomaaliyeed la marin habaabiyo oo xasan sheekh maxamed nimad foojari ah uu rabo inuu dalka ku qabsado ayay ahaayeen wixii baydhabo ka dhacay lamood noqon sawayday ayay noqdeen wixii baydhabo ka dhacay wixii baydhabo ka dhacay waxay tusaale u yihiin sida xasan sheekh maxamuud ama xasan xabaalo qof uu doonayo inuu talada dalka isugu hayo ama ku joogo ama isku koob haddaba maxaa dhacay salawada socotaan aan idin la wadaagay ceeb iyo foolxumo weyn ah baydhabo ka dhacday horta safarkii xasan sheekh maxamuud waa la soo gaabiyey waxa uu qorshaysanayd inuu joogo muddo 2 maalmood ah waa la fashiliyey labadaas maalmood wuxuu waday lacag uu doonayo inuu ku kala furfuro ciidanka daacadda oo ah lafta gareen waa fashil waa midda labaad wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee caleema saar ka qayb galo oo xataa ku hoyan waayay magaaladii uu tagay saa la wada socotaan laasaanood markuu uga qayb galay caleema saarkii firniyay muddo 2 habeen ayuu ku hoyday markuu dani caleema saarkiisa joogay 2 maalmood oo joogay qoor sidoo kale jawhar sidoo kale baydhabo maxay uga duwan tahay magaalooyinkaas maxay baydhabo uga duwan tahay magaalooyinkaas macnaheedu waxa way baydhabo in wali arinteedu aan lagu heshiin in baydhabo dadkeedu ay kala aragti duwan yihiin in xasan sheekh maxamed wuxuu meesha keenay ay yihiin wax propaganda ah in ay yihiin wax prank ah in ay yihiin wax been abuur ah indha sarcaad ah haddaba lafta gareen uu ku guuleystay inuu indha sarcaadkaas ummadda tuso wuxuu lafta gareen ku guuleystay inuu khiyaanada xasan sheekh maxamed ummadda tuso maxaa dhacay diyaaradiisi waa ololeysaa qayb dhan ayaa oloshay waxay xogaha la helaya ay xaqiijinayaan in madfaca ama hoobiyaha ku dhacay diyaaradda lagu aadeeyay xilli xasan sheekh maxamuud uu diyaaradda jaranjaradeeda ka gudbay oo goli rabay su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay yay tahay cidda garoonka joogtay ee hagaysa hoobiyaha ilaan hoobiyaha haddaan la hagin iskama soo dhace yayse tahay cidda diyaaradda xasan markuu soo korayay u sheegtay ciidanka lafta gareen waxay xoojinaysaa aragtiyaha muujinayo in weli sirdoonka lafta gareen ay ku xoogan yihiin deegaanadaas waana sababta ilaa xilligan lafta gareen inta dagaalka magaalada baydhabo uga baxay markaasi xeelo dagaal uu jabhadaynayo oo ilaa xilligan xasan sheekh kooxdiisu ay ku wareersan yihiin halka ay joogaan ciidamada daacadda oo lafta gareen haddaba waa kuwana ciidanka lafta gareen oo fariimo dirayo ilaa harka sidaadiga in warma reer madaatooy jooga saacigeek haddana haska jarnan halas diyaariyo siin karnay joogana seef waa ahee ciidamadii daraawishta lafta gareenaa soo isku baabay dhawo waa billahi tawfiiq halkaas waa arintaas haddaba yaa ka dambeeyay duqeyntii maanta loo geystay ciidamada lafta gareen oo dib u soo rogaal celiyay ciidanka lafta gareen waa la duqeeyay maanta awood xad dhaaf ah loo adeegsaday turki baa lagu jaajuusay nin jaajuus ah oo gudoomiye baarlamaanka doonayo oo basaas turki ah baana awooddaas adeegsanayo diyaaradahaas turkida waxaa loogu talagalay inay shabaab la dagaalamaan wixii khatar ku ah dalkan inay la dagaalamaan laakiinse aragtiyaha siyaasadda ee arrimaha gudaha Soomaaliya isku hayo inay farageliyaan looma samayn heer waxay marayaan hadda xasan sheekh meeshu aaday inta ka sii hormaraan ay duqeymo geystaan yay tahay marka cidda ka shaqeynayso cidda turkiga xilligan basaaska u ah ee beenta u sheegayso ee mataqaana ay danaheeda siyaasadeed dhex fushanayso waa basaaska loo yaqaan Cabdulqaadir Maxamed Nuur ama madaxa nafra ninkaas maanta dadkiisa ayuu wuxuu ku soo hagay Erdogan diyaaradihii uu mataqaana Turkida F16 dacwadooda socoto waa la dokumenti gareeyay raxan weyn digli mirfla meel kasta ay joogaan way dokumenti gareeyaan waa lagu xisaabtamaya ciidamo 5 ah oo dowladka baydhabo joogay bay duqeyn u geysteen si loogu gagal xaaro imaatinkii xasan sheekh maxamuud una kormeeraan
saaka 12 aroornimo ayay ka soo baxday Muqdisho waxay duqeynta geysatay 1 saac oo subaxnimo waxayna u gogol xaartay in Xasan Sheekh Maxamuud galabtii casar liiqi u yimaado Baydhabo laakiin arintaasi waxay lafta garan ku kaliftay inuu soo rogaal celiyo Xasan Sheekh Maxamuudna uu ka diido koow inuu ciidankiisa kala furfuro oo magaalada ku nagaado iyo inuu caawa ku hoydo iyo in diyaaradii soo qaaday ay laabato iyadoo nabad qabta lafta garan diyaaradii soo qaaday wuu gubay diyaarad ay leeyihiin qaramada midoobay waa lagu cararay Xasan Sheekh magaaladiina wuu u diiday rag u dhimasho waa u joog xasanna ma duqeyna turki baa duqeysay uu adeegsanaya jaajuus gudoomiyaha baarlamaanka rabo laakiin maxay ciidanka lafta garan ku guuleysteen in ay fashilaan dhagartii Xasan Xabaalo qof magaalada uusan joogin lacag sunuuda oo dadkooda lagu kala furfuro ama lagu burburiyana uusan magaalada keenin xasanna beentii uu ka shaqeeyay uu celiyo haddaba way muuqataa turkigu markii ugu horeysay inuu siyaasadda arrimaha dibadda gudaha Soomaaliya oo muddo dheer banaanka ka taagnaa u faragelinayo Soomaaliya waxaad ogaataan qatarta maanta Soomaalidu wajahayso horta turkiga hormuud ah Soomaaliya arrimaheeda gudaha ayada xallisan jirtay quwada shisheeyana ma imaan jirin dalka dagaal wakiilana Soomaaliya qatar kuma jirin in turkiga oo bariga dhexe laga soo eriyay uu Soomaaliya imaado oo haddana looga daba imaado waxay muujinaysaa qatarta iyo in turkigu ahaa hombobaro libaax soo siday ummadda Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin waa walaalaheen waa muslim wax la yiraahdo muslim ama walaalo siyaasadda kuma dhisna siyaasaddu waa isweydaarsi dano turkigu walaaltinimadu u gali waayay Falastiin ee Soomaalidu u galay maxay tahay ma yadanihiisa Soomaaliya ka soo galay hadda waxa u sii dheer in jaajuusiintii Soomaalida ay la shaqeynaysay ay leeyihiin xasanow ay leeyihiin turkiyow awooda dalka nugu hay waxaad marqaati ka tihiin beebayaashiisa Sheekh Shariif lagu weeraray waxaad marqaati ka tihiin droniskiisa lagu duqeyn lahaa ugaaskii murursaday Xasan Cali Khayre waxaad hadda u jeedaan in diyaaradii F16 ee qaaliga ah lagu weeraray ciidanka lafta galeen shabaab cadow ma arkaan saacado ka hor ayuu fiqi ku dhawaaqay in shabaab iyo xisbiga JSP ay laba xisbi yihiin shabaab waxa loo aqoonsaday xisbi shabaab way joojiyeen qaraxyadii deegaanadoodana way dhexmaraan deegaanada ay gacanta ku hayaan Xasan Sheekh Maxamuud ciidankiisa way dhexmaraan waxa ka dhaxeeya heshiis shabaab dawladda ku jiraan islaami baa la siiyay shabaab waxa loo diyaarinayaa inay la wareegaan haday ciidamada Afrikaantu baxaan yaa marka cadow ah waxa cadow ah maamul goboleedyada amniga ah waxa cadow cid kasto ka arag duwan Xasan Sheekh waxa cadow cid kasto la yur mandate-kaaga waa dhamaaday 4 sanaad haysta jooji xaq darrada aad wadid intaas cadow ah intaasna maxaa loo adeegsanaya hubka turkiga haddaba turkigu waa gumayste taariikhdii hadda aan idin wayna kaga sheekeynayaan waan dul istaagi doonaa buugaagta taariikhda waxaan ka soo akhrinay 3 jeer oo turkigu Soomaaliya faragelinaya midii kood waxay ahayd qarnigii 15aad xilliga Axmed Gurey nin baa taariikhdaas ka wasiirka cadaaladda Puntland anagu ku celinaya saad labada socotaan Axmed Gurey isagoo ka cararay turkigu iyo Cusmaaniyiintu ka cararayaan in Axmed Gurey uu noqdo awood baaxad oo ka dhisan geeska Afrika maadaama Axmed Gurey uu doonay inuu xataa markuu kaniisadii burburi Itoobiya uu doonayay in quwad muslim ah oo Soomaaliya hogaamiso halkaas laga yeegleelo turkigu waa ku kacsaray waliba arinta isku khilaafeenna waxa kamid ahayd markii la qabtay ninkii Boortaqiiska ahaa ee boqorkii Xabashada uu soo hiliyay markii la ciirsaday Faaska Dagama wiilkiisa badmareenka ina Faaska Dagama markii Axmed Gurey ciidankiisa qabteen saraakiisha turkidu waxay dhaheen nagu soo wareeji maadaama Cusmaaniyiinta oo Turki ah iyo Boortaqiisku loolamayeen waxay rabeen inay ninkaas sargaalka ah ee Faaska Dagama uu dhalay badmareenka uu dhalay maadaama qoys uu ka dhashay reer mataqaana Boortaqiis oo boqortooyo ah inay ku bedeshaan maxaabiis kale oo Cusmaaniyiinta laga haystay laguna qasbay Boortaqiisku ka gurto geeska Afrika uu ka gurto kana guuro Axmed Gurey waa diiday ninkan waa dambiil yiri waa gaal buu yiri wuuna laayay buu yiri waana ka orgos waa gowracay mar alaali markuu Axmed Gurey gowracay ninkaas bay baxeen 200 oo askari bay turkigu ku taageereen aanay Cusmaaniyiintu ku taageereen xilligaas ciidankii Axmed Gurey iyo hubkii artilleriga hubkoodina waa la baxeen markaas kadib ayaa Itoobiyaankii Boortaqiiskii soo rogaal celiyeen Axmed Gurey ciidankiisa la soo jabiyay taariikhda taas ah in Axmed Gurey ciidankiisa la soo jabiyay iyaga sabab u ahaa markii horena iska dhigay inay taageerayaan walaalo muslimiina garab u fidiyaan dana siyaasadeed ay wateen waxayna ka shaqeeyeen in hararna laga qabsado waxay ka shaqeeyeen in dib loo soo ceeliyo muslimiinta loo soo celiyo iyo Soomaalidii markii labaadna waxay ahayd qarnigii 18aad saa la wada socotaan
dhulkii ay ka dalin jirtay saldanadii adal waa la soo qabsaday marka laga soo tago amiiradii harar waxay ku soo ururtay eriya saylac iyo xeebaha soomaalida bay ku soo ururtay turkiga waxaa wakiil uga ahaa ninkii khadiif ismaaciil la oran jiray ee masar maadaama dee masaaridu qaahire ay joogeen cusmaaniyiintu xukumayeen maadaama xilligaasi ku jiray cusmaaniyiintu ay ku jireen xilliga ay u bixiyeen reer yurub ninka buka ee yurub ay u bixiyeen dhammaadkii cusmaaniyiinta lagu jiray markii qaahire ingiriisku soo weeraray ayaa lagu amray ciidamadii masaarida halkaas joogay inay ka soo baxaan waxaana xeebaha Soomaaliya bullaxaar ilaa iyo saylac gacanta u galay ciidankii ingiriiska oo cadan iyo isku xiray berbera sidaasna ku soo degay markaasna gumaystayaal reer yurub uu gacanta u galiyay marka saddexaadna waa xilligan waxaadna ogaan doontaan inuu ka carari doono oo yuhuud uu dalka gacanta u galin doono waa hama baro weligiisba sidaas wax haddaba xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu hadda dad shacab ah bay waxay ku laayeen baydhabo shalay wuxuu beebayaal ku weeraray sheekh shariif waxaa ka sii horeysay daroonkii isla isbuucaas ku weeraray khayre maxaa diidaya markay maadaama hub dowlad quwad ah uu u isticmaalaya inuu siyaasadii gudaha uga adkaado dadka dhaliilsan ama diidan maxaa diidaya marka Soomaaliya in Soomaalida kale ee xasan sheekh maxamuud ka soo horjeesto inay quwad shay raadsadaan maxaa diidayo maxayse ku kala duwan yihiin Netanyahu oo xasuuqaya Filistiin iyo Erdogan oo xasan sheekh maxamuud u adeegsanayo xusuuqa dadka ka aragtida duwan maxay ku kala duwan yihiin xasan sheekh oo Turkiga iyo Erdogan u adeegsanaya diyaaradihiisa xasuuqa dadka ka aragtida duwan iyo Netanyahu oo reer qasalaynaya maxay ku kala duwan yihiin waxba